بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan ardayda qiimaha badan salaan baan idiin soo dirayaa salaantaas oo salaanta islaamka ah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. bacdal salaan insha allah waxaynu sii wadi doonaa markaa cashirkeenii ahaa emergency medicine-ka. waxaynoo socda tababar yar oo gaaban. tababarkaasna wuxuu ahaa emergency medicine. tababarka ay ka faa'iideysan doonaan markaa insha allah ardada dhiganayso sessionkeena ama cashirkeena labaad baa insha allah caawa inoo bilaabmi doono. life saving emergency and procedure waa cashirkeena sessionkeena labaad oo ah markaa la tacaalidda xaaladda degdega ah iyo nidaamyada samata bixinta aynu u sameynayna markaa qofka bukaha ah. nidaamyadaasi aynu eegi doono waxaa ka mid ah markaa dhowrkan cutub buu inoo noqon doona insha allah. life saving emergency procedure-ka contentiska inta markaa waxyaalaha uu inooga kooban yahay cashirkeena aynu cawaalan kusoo gudbin doono waxaa ka mid ah cardiopulmonary on adults, cardiopulmonary on pediatrics, care of choking adults, care of choking pediatrics. afartaas qodob baynu markaa cashirkeena ku eegi doonaa. haddaba cardiopulmonary resuscitation-ka marka la sheegayo waa dib u soo nooleynta wadnaha qofka weyn iyo dib u soo nooleynta wadnaha waxa loo yaqaano qofka yar iyo samata bixinta qofka markuu saxdo qofka weyn iyo samata bixinta ama daryeelka loo sameeyo qofka markuu saxdo yar. insha allah qodobadaas aynu ku eegi doonaa. qodobkeena koowaad waxaa weeye adult basic life support. waa dib u nooleynta wadnaha qofka markaa waxaa loo yaqaano qofka weyn insha allah ayaynu ku eegi doonaa. haddaba basic life support-ka aan u sameyneyno qofka weyn ama cardiopulmonary resuscitation-ka sida kale marka laga CPR-ka aan eegi doono insha allah. definition-ka waxaa lagu qeexaa basic life support-ka waxaynu ku qeexeynaa is maintaining airway patterns. waa habka loo furo hawamareenka qofka inaan joogteyno furno airway patterns markaa hawamareenkii qofka inayn u furno aan supporting inayn ka taageerno breathing markaa neefsiga qofka inagoo ka taageereyno neefsashadiisa aan circulation iyo wareega dhiigga markaa wadnaha without use inagoon isticmaaleynin of equipment wax qalab ah adadan marka laga reebo protective device marka waxyaala ayn ku ilaalinayno qofka afkiisii markaa hunguriga kale qofka markuu suuxo ama uu dhacoon u nimaadno si carabkiisa uu isu cunin ama isu qaniinin waxaan sameynaa waxbaynu u gelinaa markaa aynu ku ilaalinayna markaa carabkii inuu is cuno ama isqaniino. marka anyway waxaa la yidhaha waa habka loo furo hawamareenka loogana taageero qofka neefsiga iyo wareega dhiiggiisa inagoon isticmaalayn wax qalab ah marka laga reebo waxyaalo ayn ku ilaalinayna markaa qofkii markaa hawamareenkiisi. okay responsive interval intuu qofka u dhexeyso inuu nooga jawaab celin karayo oon hawshan ayn wadayna waxaa weeye 5 minute ilaa iyo 8 minute ilaa iyo 11 minute qofka marka horeyso uu shooga uu ku jiro. agonal breathing ama gasping breathing xilliyada qaar qof videogan waa idiin soo diri doonaa insha allah oo markaa qofkan sida nidaamka loo samata bixinayo. marka dadka qaar waxaa jira markay saa u dhacaan wadna xanuunka leh ay saa u dhacaan waxay sameeyaan marka hawo ayay raadiyaan qofka uu raadiyaa markaa hawadii inuu marka
uu hiiraag oo kale uu sameeyo afka uu kala qaado marka hawadii oo kale uu raadiyo marka that's what they call marka wax loo yaqaano gasp and breathing qofka waxaad arkaysaa marka afka kala qaadayo hawadii marka raadinayo marka hiiraag sameynay waa calaamad marka lagu garto cardiac arrest marka qofka wadnihi shaqadii uu joojiyo occurs waxayna ku dhacdaa 40% caseska marka ama bukayaasha wadna xanuunka leh an indication of cardiopulmonary resuscitation markaan eegayno yaa loo sameyn karayaa marka dadka loo sameyn karayo marka dib u soo nooleynta wadnaha yayn dib u soo nooleynta wadnaha yaynu u sameynaynaa waayo dadka marka iyada ay loo baahan yahay in loo sameeyo marka dadka indicationiska ah oo loogu talagalay oo u baahan in loo sameeyo waxaa ka mid ah cardiac arrest dadka uu shaqadooda markaa wadnuhu u istaajiyay markaa wadna istaaga dadka laba isku qaldaan cardiac arrestiga iyo heart failureka insha allah cashiradeena markaan dhiganayno managementiga ama sida loo daweeyo ayaan markaa heart failureka ku arki doonaa cardiac arrestiga waxaa la yidhahdaa marka uu qofku wadnuhu shaqadii uu joojiyo xagga electricalka xagga dabka ayay ka timaadaa markaa oo sinoatrial nerve wadnaha dabkiisa isagoo qaas u leeyahay isla markuu ka qalqal ku yimaado ama dib ay ku timaado ayuu badanaa ay dhacdaa markaa waxa loo yaqaan heart failure kana badanaana wuxuu dhacaa isaga markii dhiigga wadnaha uu ka goosto xididada ay dhiigga wadnaha ay xiraan anyway respiratory arrest markuu qofka neefsashadii sambabka uu joojiyo drowning qofka markuu qarqoomo kala balli ama waxa uu ku dhaco markaa biyo uu ku dhaco qofka head injury qofka markaa dhaawac madaxa ka soo gaaray aan miyirkiisa joogin with unconsciousness qofka markaas miyirkiisa joogin electrical shock qofka markuu dab qabsado markaa light airway obstruction markuu qofka hawo mareenka uu xidhmo oo kale jogging qofka marka uu saxdo oo markaa cunno uu ku margado ama uu ku saxdo hypovolemic shock markuu qofkii waxa loo yaqaan shock oo gala qaas ahaan volume-ka oo lumo kaasoo ah in qofka dhiig baxo ama qofka waxa loo yaqaan uu fuuq baxo dhaari ama vomiting ay qofku dhacdo ama qofka waxa loo yaqaan volume-kiisa uu lumo drug overdose qofkii dawadii ba xaddi ka badan la siiyo kala dadkaas loogu talagalay samata bixinta ama dib u nooleynta wadnaha yaan loo sameyn kareynin cidda aan loo sameyn kareynin waa ciddee markaa waxayna u sameyn kareynin dib u soo nooleynta wadnahaasi qofkii ay ku qoran tahay ama la yiraahdo the only absolute qofka keli aan loo sameynin contraindication ka mamnuucta waxaa weeye cardiopulmonary resuscitation soo nooleynta wadnaha waxaa weeye do not resuscitate haddii qofka qalabka ama saacadda ama waxa ay gacantiisa ay ku xirantahay ama maradiisa oo lagu yiraahdo qofka ha u sameyn resuscitation ka un baa loo sameynin marka qofka gacantiisa ay ku xirantahay ama jeebkiisa waa la iska hubiyaa markaa waxyaalaha qofka wadnaha inuu joogsado ama istaaga sameeyo waxaa ka mid ah waxyaalaha qaar la soo celin karayo hypoxia qofka oxygen ka go'do hypovolemia qofka dhiig baxo ama fuuq baxo hypo ama hypokalemia qofka potassium ka lunto ama ay ku badato hypothermia qofka xumadiisa ay hoos u dhacdo ama heerkulkiisa hoos u dhaco thrombosis qofka kale xinjir baa circulation ama dhiig wareegiisa xidhay tension pneumothorax qofka hawada sanbabkii markaa kaga ka buuxsanto markaa kaga jirto tamponade ama cardiac tamponade ciriyadii ama wadnihii sanbabkii kaleeto xub ku wareegsan ama dhiig ama biyo ama hawa ku jirto meel ku kala baxa waaye toxins qofka sun baa jirkiisa soo gashay the most common cause of cardiac arrest in adults waxyaalaha ugu caansan ama ugu badan ee ku keeno qofka inuu wadnaha istaago dadka waaweyn waxaa weeye hypotension marka inuu pressurekiisii ama cadaadiskiisii uu hoos uu u dhacay markaa wadnaha oo ka iman karta markaa xillad xagga wadnaha carruurta yarayna waxa ugu caansan ay ku keento waxaa weeye hypoxia oxygentii markaasi wadnaha iska xidhay cardiopulmonary resuscitation dib u soo nooleynta wadnaha haddaba marka in dib u soo nooleynta wadnaha aan sameynayno magac bixin loo soo gaabiyo ayaa jiro sida qofka xusuustiisa ugu wanaagsan waxaa la yidhaha DRSABC doctors ABC ayaa loo soo gaabay
d-da waxaa loo soo gaabiyaa waxa la yiraahdo danger qofka inuu khatarta qiimeeyo. ensure waxaad iska hubisaa iska qiimeysaa the safety deegaanku ama bayada ama deegaanku inuu nabadoon yahay. halkan xaaladda qofka uu ku dhacay ama joogo environmentiga ma tahay meel nabadoon, markaa khatarta naftirkaaga inaad ku dhacdo wixii qofka waxyeeleeyay inaad iska hubiso. markaa danger ensure the safety khatarta qiimee deegaanku ma tahay meel nabadoon oo ku habboon qofka inay ku badbaadin. number 2 response inaad ka war doonto markaa qofka inuu kuu jawaab celiyo. check for response by gently shaking his shoulders. waxaa iska hubisaa waxa loo yaqaano ood eegtaa inuu qofka hadlayo. markaa waxaan sameynaynaa waxaa weeye la hadal markaa qofki inaad qofkii la hadasho by gently adigoo si tartiib ah shaking markaa ruxayo his shoulders markaa garabkiisa adigoo saa u ruxayo. and asking loudly adigoo ku qaylinaya markaa are you all right war hebelow hormaladanta markaa iska waran caadi ma jiraa. markaa qodobka labaad waa maxay response inaad qofkii la hadasho oo wax loo yaqaano ka war doonto oo markaa qofkii aad ku qayliso oo garbihiisa aad ruxruxdo hebelow war iska waran. okay qodobka saddexaad s waa maxay in markaa qayladhaan aad dirsato. shout for help inaad qayladhaan caawin inaad dirsato markaa caawiya shout for help inaad ku dhawaaqdo waxa loo yaqaano maxay caawimaad. markaa call for help inaad caawimaad dirsato inaad qayladhaan dirsato. turn the victim on his back markaa inaad qofkii waxa loo yaqaano dhibanaha ahaa aad dhabarka aad u dhigto. markaa inaad qofkii dhibanaha waa maxay inaad dhabarka aad u seexiso markaa inaad dhabarka u dhigto. okay airway open the airway using markaa airway qofka waxaa furtaa markaa hawamareenka qofka hawamareenka open waxaa furtaa the airway markaa hawamareenka qofka using adigoo isticmaalaya head tilt chin lift technique adigoo technique ama xeelada adeegsanaya head tilt inaad madaxa aad waxa loo yaqaano dib u celiso markaa inaad dib u riixdo waxa loo yaqaano madaxa. and chin lift aadna sare u soo qaado sare u riixdo markaa qofka garkiisa ama daanki marka daankana kor u riix madaxana waxa loo yaqaano maxay dib u dhig inaad dib u yar dhigto. markaa ayaynu u baahannahay. markaa breathing qofka waxaan eegaynaa neefsashiisa eegto waxaad eegtaa waxa loo yaqaano qofka neefsashadiisa. check the breathing waxaad eegtaa waxa loo yaqaano waa ama hubisaa inaad hubiso neefsashada qofka markaa. okay waxyaalaha aad ku hubinayso waxaa ka mid looking adigoo eegaya indhahaaga ku eegaya waxa loo yaqaano maxay in laabtiisa qofka sare u soo kacayso laabta qofka inay soo kacayso markaa tamaradii ama shaarka aad ka furto waxaad eegtaa inay laabtiisa ay soo kacayso. feeling waxaad dareentaa waxa loo yaqaano oo aad taabataa qofka laabtiisa waxaadna dhegaysataa laabtiisa. markaa waa looking eeg feeling dareen and listening waxa loo yaqaano waa maxay in aad waxa loo yaqaano aad dhegaysato markaa qofkii neefsashadii markaa. okay waxaa kale oo taabataa halbowlaha qofka qoortiisana qofka waxaa samaysa waa maxay in aad halbowlihii qoortiisana aad taabato markaa. okay call for help waxaad u yeerataa waxa loo yaqaano
codsi markaa qayladhaan codsi dirso call for help caawimo inaad dirso ask someone to call the ambulance and bring an EED marka waxaan u baahannahay inuu qofkii uu codsado gargaar inaad gargaar codsato markaa oo gargaar caafimaad aad dirsato si lagugu keeno markaa ambulance ay ku timaado laguna keeno waxa loo yaqaano kiciyaha waxa loo yaqaano markaa wadna defibrillator markaa bahalkii ama qalabkan lagu riixo markaa wadna hodhowna ambulance ay qofka ku qaado oo goob caafimaad qofkii loo geeyo intii lagaaga imanayo waa inaad sii samaysaa wax loo yaqaano laab riixid iyo neef ku afuufid qofka ah inaad u samayso marka inay way soo koobeynaan waa qaybta ugu muhiimsan marka cardiopulmonary resuscitation laga hadlayo oo qofka inuu fahmo markaa DRS ABC oo ah khatarta qiime daanjarki khatarta qiime response qofka ka wardoon shout qayla dhaandirso airway qofka hawamareenkiisii ama neefsigiisii waxa loo yaqaano inaa hawamareenkiisii aad furto neefsigiisa aad eegto oo waxa loo yaqaano codsina aad dirsato marka technique ama xeeladii loo yaqaano oo la yiraahdo waxa loo yaqaano maxay in qofkii aad madaxiisa aad dib aad u riixdo markaa qofkiina madaxiisii qortiis aad dib u riixdo aadna dibna u soo riixo soo qaado garkiisa markaa labada qodob ayaa ugu muhiimsan markaa qofka madaxiisana dib u riix waa head tilt baa la yidhahdaa and chin lift madaxa dib u riix garkana sare u soo qaad si markaasi carabkiisii uu markaa waxa loo yaqaano uu hawamareenka uusan oga xirin inuusan oga xirin markaa this waxa waa habka ugu filan markaa blocked airway baan ka ilaalinaa markaa qofka markuu sida u yaalo hadda digriga waad aragtaan waxa loo yaqaan markaa madaxii dib u riixnay garkana aan sare soo qaadnay qofka hawamareenkiisa wuu furmo markaa waxaan sameynaynaa waxa loo yaqaano inaad dhageysato qofkii neefta inuu neefsanayo laabtiisa inay soo kacayso aad eegto marka waxaa leeyahay look eeg inay qofka laabtiisa soo kacayso feel waxaad dareentaa waxa loo yaqaano oo dhageysataa qofkii neefsi markaa qofka neefsanaya dhegti saar waxa loo yaqaano laabtiisa soo kacaysa eeg waxaana dareentaa waxa loo yaqaano halbowlihii qoortiisii iyo kuwaana waxa loo yaqaano gacanta inaad ku dareento oo saarto marka look waa eegis oo laabta inay soo kacayso listen waa dhageysi inuu qofka neefsanay feelna waxaad dareenta waxa loo yaqaano waa maxay dhegtan aad ku dareemi kartaa waxa loo yaqaano gacantina fartin inaad saarto halbowlaha qoorta markaa circulationkii baa markaa isagana qodob kale oo muhiim ah markaa qaybta circulationka ama wareegii dhiigga ayaa inoo muhiim ah markaa perform effective chest compressions in qofkii intaan jiifino dhibanaha ahaa waxaan doonaynaa waxa loo yaqaano si qoto dheer oo waxtar leh inayn hadda waxa loo yaqaano laab riixis inay sameyno markaa laab riixid in qofka laabtiisii in aynu riixno markaa sida laabta loo riixa marka haddaba in eegi doona victim dhibanihii laying flat waxaan u seexinaynaa waxa loo yaqaano maxay si siman markaa ayaan u seexinaynaa okay on a firm surface waxaan qofka ku jiifinaynaa dhibanaha ahaa ooga siman oo adag firm marka flat siman on a firm markaa surface marka oogo firm adag and flat siman ayaan ku seexinaynaa sidaa marka wax loo yaqaano madaxii waxa weeye wax loo yaqaano ayaynu qofka u seexinaynaa markaa dhacdiidka okay markaa ooga siman oo adag baan qofka ku seexinaynaa okay halka qofka laga riixayo markaan riixidda ayn samaynayno halkee qofka laga riixayaa markaa waxaan ka riixaynaa siteka waa location goobta lower end of sternum halka hoose ee ku dhammaata sternum lafta sakaarka laftaa laabta sternumka anatomical waxaan u qaybin jirna 3 qaybood menaberium oo qaybta sare ah oo fayda koowaad iyo kalxamaha ay ku xidhmaan iyo qaybta labaad oo body la yiraahdo
iyo qaybta hoose ee xiphoidka ah. markaa qaybta hoose ee bodiga iyo xiphoidka ayaan qofka ka riixaynaa markaa ayaynu ka riixaynaa lafta sakaarka qaybteeda hoose ayaynu riixaynaa markaa halka aynu gacmaha saarno. dibith markaa qotada inta hoos loo riixayo. depress the sternum waxaan hoos u riixaynaa si qoto dheer u riixaynaa about in cabirkeedu uu yahay 5 ilaa 6 centimeter ayaan down ayaan si hoose u riixaynaa markaa qofkiina hal mar feerihii hawada jibin markaa si qiyaas aan xoogna ahayn qafiifna ahayn oo yara dhexe ayaynu riixitaanka u sameynayna. rate markaa haddaba cadaadiska aan lafta ku sameynayn intaasuu noqdo. haddaba rate xaddiga in intee leeg ayaan sameynaynaa markaa tirada. okay rateska ama xadidka ama tirada waxaa weeye 30 chest compression waxaan sameynaynaa 30 cadaadis wareegiiba. 30 chest compression 30 cadaadis ama laab riixis baan sameynaynaa cycle markaa wareegiiba. okay 100 ilaa 20 chest waxaan sameynaynaa 100 ilaa 120 cadaadis ama riixis laab riixis ayaan sameynaynaa minidkii 60 second ama minidkii markaa 60 ilbiriqsiba waxaan riixaynaa ama laab riixis sameynaynaa wax loo yaqaan waa maxay 100 ilaa iyo 120. okay wareegiiba waxaan sameynaynaa waxa loo yaqaan wareegii markaa reesh celcelis ahaan wareegii waxaan sameynaynaa 30 laab riixis iyo 2 waxa loo yaqaano neef ku afuufid bayn sameynaynaa markaa neef siin 30 laab riixis iyo 2 neef siin ayaan sameynaynaa markaa waa 30 compressions waxaan sameynaynaa 30 cadaadis iyo risk breathing iyo 2 neef siin inaan qofki neef ayn ku afuufno. haddaba qaabka loo riixaya waa sidee. straight elbow and back waxaa toosisaa suxulkaaga gacanta halka ay ka laabmayso toosi dhabarkaagana toosi gacmahaaga suxullada iyo dhabarkaba inaad toosiso. minimize waxaad yareysaa interruptions markaa yaree jarjarka inaad yareyso kala gogoynta markaa jarjarista. push head and push faster xoog u riix si dhaqsaana u riix markaa push head xoog u riix and push faster si dhaqsa degdegana u riix markaad sameynayso wax loo yaqaan waa maxay chest compression. okay technique loo riixaya laab riixista loo sameynaya iyo neefsiinta waa qaabkan 30 goor ayaa laab riixis aad sameynaysaa 2 goorna neefsiin ayaad sameynaysaa markaa 2 goorna waa maxay neefsiin ayaad sameynaysaa. okay qaabka ugu fiican waa qaabkan in waxa loo yaqaano farahaaga aad gacantaada waxa loo yaqaano bidxa hoosiiso ta midigna aad sareysiiso farahana waxa loo yaqaano waa maxay aad ta midig aad soo dhexgelisa markaa farahaagan inay laabta taabtaan lama dooniyo markaa halkaa qaybta hoose ee lafta sakaarka ayaa markaa ayn ka riixaynaa. okay maxaad samaysay wax loo yaqaano gacmahaaga waa toosay suxullada ama elbowska jiqiladana waxa loo yaqaan waa maxay waa toosay dhabarkaagana waxa loo yaqaana waad sintay markaa habkaas ugu fiican habka loo riixo. waxa la diidayaa waa markaa suxullada ama jiqilada in waxa loo yaqaan aad soo foorarsato oo waxa loo yaqaan waa maxay elbowskii ama jiqiladina aad laabto markaa ayaa la diidayaa habka qaldan. habka loo qaldan waxa loo yaqaano waxa weeye in aad dib u baxdo oo waxa loo yaqaan aad qalloociso angalka hadda wixii aad toos aad qofka dhabarkaaga u toosinayso culada toosinay haddana qalloocaas ku jira marna qallooca kan muxuu ahaa suxullada marna qallooca waxa loo yaqaan waa maxay gacmahaagi oo aad dib u riixday markaa. qofka waxaad siisaa 2 risk breathing waxaad siisaa qofka waxa loo yaqaano 2 neefsiin in aad sameyso. okay alternative to the chest compression markaa 30 goor aad riixdo 2 goorna qofka waxa loo yaqaano waa maxay ku afuuf ama si hawada markaa. haddaba sideebaa hawada loo siinayaa neefsiinta qofka sideebaa neefsiin u siinaysaa markaa
risk breathing kan neefsinta waxaa weeye aad u siinaysa wax loo yaqaano kow open waxaad furtaa airway markaa hawo mareenki fur hawo mareenki with heat madaxa tilt adoo madaxa dib u riixaya and chin lift garkana sare u soo qaadaya markaa take normal tidal volume hawo caadi qaado tidal volume-ka hawo caadi inaad qaadato markaa hawo kugu filan qaado pinch the nose of the victim qofka dhibanaha sankiisa xidh sanka qofka dhibanaha markaa sankiisa inaa xidho seal your lips of a victim's mouth okay waxaan hadda u baahanay dhibanaha in waxaa loo yaqaano dibnahaaga si fiican ugu beegto dibnaha qofka markaa dhibanaha afkaaga kala fur deetana dibnahaaga ama afkaaga waxaad ku beegtaa afka waxaa loo yaqaano qofka dhibanaha ah ku beeg blow over 1 second ku afuuf hal ilbiriqsi oo xoogan markaa blow over 1 second ku afuuf hal ilbiriqsi oo xoogan markaa qofkii okay qofka afkiisa baa furtay waxa loo hawo mareenka baad furtay madaxii dib baa u riixday garka saraad u soo qaaday waxa loo yaqaan hawo kugu filan baad qaadatay sankina waad xidhay kadibna waxaad samaysay waxa loo yaqaan afkiisa baad afkaaga aad ku beegtay kadibna hal mar ayaa waxaad ku afuuftay waxa loo yaqaan hal ilbiriqsi oo xoogan baad neefti aad ku afuuftay markaa okay maxaan sameynaa hadda wax loo yaqaano madaxa qofka dib baan u riixnay garkina saraan u soo qaadnay chin tilt qofka garkiisa ama daankiisa waxa loo yaqaano qofka daankiisa ama garkiisa saraan u soo qaadnay madaxiisana dib baan u celinay sankina waxa loo yaqaano waan xidhnay afkaaga baad qofka dhibanaha afkiisa aad ku beegtay si xoogan ayaad neefta waa maxay ayaad u siisay markaa haddii ay haysto waxa loo yaqaano ambibagina waxa loo yaqaano technique baa la isticmaalaa oo EC shaped baa la yidhaahdaa far iyo suul ayaad waxaa ku qabanaysaa waxa loo yaqaano ambibagi kadibna waxaad samaynaysaa wax loo yaqaano 3 faroodna qofka garkiisii baad sare ugu soo qaadaysaa kadibna kan baad ku riixaysaa markaad samayso 30 waxa loo yaqaano laab riixis ayaad samaynaysaa waa maxay 2 goor inaad hawadiina aad neefta siisid markaa when to stop CPR goormee la joojinayaa wadna noolaynta goormee la joojinayaa waxaa la joojinayaa if haddii the victim dhibanaha start uu bilaabo breathing normally qofka dhibanaha hadduu caadi u neefsado oo isaga caadi u neefsado oo mas-uuliyadda uu kala wareego you will stop it waad joojinaysaa dib u soo noolaynta if the resuscitation team arrive haddii gargaarka caafimaadku ku yimaadaan iyana waa joojinaysaa if you exhausted haddii aad ku daashid daal aad dareento waad joojinaysaa okay put the patient u dhig bukaanku in a recovery position u dhig markaa qofka bukaanka waxaa u dhigtaa dhinaca markaa ama dheega bidix u dhig markaa if he shows signs of life haddii aad qofka ku aragto calaamadaha nolosha waxaad u dhigtaa waxa loo yaqaano dhinaca bidix recovery positionka dheega bidix u dhig sida sawirka hadda inooga muuqan doonto okay qofkii dhabar buu kugu yaalay waxaad samaynaysaa waxa loo yaqaano gacantiisi waxa loo yaqaano dhinaca bidix baad u dhigtay gacantiisa midig baad u barkisay gacantiisa bidixna waad soo laabtay lugtiisi bidixna waxa loo yaqaano midigna waxaad samaysay wax loo yaqaano waad soo laabtay tii bidixna waad kala bixisa marka qaabkana waxa loo yaqaano waa maxay recovery position ayaa la yiraahdaa marka recovery bring the lower jaw forward to secure the trajectory daankiisa ama garkiisana hore baad usoo riixaysaa kadibna gacantiisa waxa loo yaqaano midig ayaad waxa loo yaqaano u barkinaysaa markaa okay intii aan sheegayno dhan waa this is the positionka aan samaynayna markaa qaabkii aan sheegaynay ayuu sawirkan inoo soo koobaya markaa
halkaas waxaan kaga baxnay dib u soo noolayntii waxa loo yaqaanay qofka weynaa. waxaan gelaynaa marka wax loo yaqaano pediatric basic life support dib u soo noolaynta markaa ilmihi yaraa. ilmihi yaraana waxaa wada same waxyaala yaroo difference bay ku kala duwan yihiin. waa un sida tii hore unbaa haddana maraynaa. inaad environmentiga ama waxa loo yaqaano khatarta aad qiimeyso. in waxa loo yaqaano aad sameyso inaad qayladhaan aad dirsato. in waxa loo yaqaano qofkii aad la hadasho. aad ku tiraahdo waxa loo yaqaano hebelow inaad ku tiraahdo ayaa loo baahan yahay. garabkiisa aad ruxruxdo aad ku qayliso markaa la hadasho ayaynu waxa loo yaqaano oo ka wardoonidaas u baahanay. kadibna qayladhaan aad dirsato. kadibna qofka dhibanaha waxa loo yaqaano dhabarka aad u dhigto maryaha iyo waxaasna waxa loo yaqaano aad ka qafiifiso. hawo mareenkiisi sida kii hore qofka loo hore in waxa loo yaqaano furta hawo mareenkiisi madaxana kor u riixdo garkana sare soo qaado inuu qofkii waxa loo yaqaano breathing neefsashadiisa inaad qofkii inaad hubiso baynu u baahannahay adigoo waxa loo yaqaano eegayo markaa fiirinayo kadibna dareemayo oo dhageysanaya markaa qofka laabtiisa ilmihiira karo saramay soo kacaysaa waxa loo yaqaano neefsashadiisii in aad waxa loo yaqaano dhegta u dhaweyso oo hawada ay kusoo gaadho inaad eegto ilaa 10 ilbiriqsi isla at the same time waxaad eegtaa waxa loo yaqaano calaamadihii nolosha ee waxa loo yaqaano garaaca wadnaha inaad eegto markaa balsiga garaaca wadnihiisa inaad eegto kadibna aad caawimaad waxa loo yaqaano aad codsi dirsato gargaarka caafimaadka si ay kugu keenaan waxa loo yaqaano wadna kiciye ama defibrillatorka waxa loo yaqaano ay kugu keenaan waxa loo yaqaano ambulance lagugu diro si qofka goob caafimaad ayna u geyna markaa. to deliver risk waxa loo yaqaano breathing ilmihi yaraa waxaan u baahan waxa loo yaqaan inaan neefsiin sameyno over 1 year halka sano ka weyn markaa qofka ilmaha halka sano ka weyn neefsiin sameyno kadibna aan xaqiijino waxa loo yaqaano madaxiisii aan sare u qaadno garkiisiina waxa sare u soo qaadno kadibna waxa loo yaqaano sanka aan qabano fariya suul kadibna waxa loo yaqaano afkiisii inay waxa loo yaqaano inaynu furno kadibna waxa loo yaqaano afkaan ugu beegno si xoogan ay afka waxa loo yaqaano neefta ayn ugu riixna markaas ayaynu u baahanahay marka waa sidii kii hore toman iyana waxa loo yaqaano aynu sameynayna markaa inta afka aan riixayno aan sameynayno waxaan u baahanay inaan eegno ilmihi yaraa laabtiisina inay soo kacaysa markaa. waxaan eegaynaa calaamadihii nolosha ayaan ka eegaynaa ilmihi yaraa inuu yeesho inuu dhaqdhaqaaq sameynayo qofac inuu sameynayo waxa loo yaqaano caado u neefsanayo garaacii wadnihiisa baan eegaynaa bronchial pulsiga ayaynu taabanaynan eegaynaa eventiska carruurta roonroonna waxaa loo yaqaano carotodka halbowlaha qoorta ama halbowlaha waxa loo yaqaano gacanta kuwa yaryarna. okay waxaan eegaynaa marka waxa loo yaqaano inayn sameyno waxa loo yaqaano soo noolayntii wadnihii riixitaankii inaan sameyno ayaan u baahana in waxa loo yaqaano ilmihi yaraa haddaba halkee la riixaya ilmaha yar waxaa leeyahay 1 finger below the waxaan saaraynaa waxa loo yaqaano 2 farood bayn ilmaha yar waxa loo yaqaano 2 fingers baan u isticmaalnaa marka sifa sternum sifoidka waxa loo yaqaano lafta sakaarka ay yar lafta sakaarka saddexda qaybood aan soo qaybinay qaybta hoose halkaasaan lafta ayayna 2 farood ayaan saaraynaa eventiska taasaan waxa loo yaqaano faraha afkooda hore ayaynu ku riixaynaa markaa faraha afkooda hore ayaynu ku riixaynaa 1 finger below the sternum. okay and eventiskan waxaan sameynaa waxa loo yaqaano tips 2 fingers or circulating technique xilliyada qaar waxaan sameynaa labada suul labadeena gacmood inta dhinacyada kasoo kala marno ayaan suulasha in ku riixnaa markaa taasaynu ku riixnaa markaa sida qoto dheedan u riixayna waxaa weeye inay sameyno waxaa loo yaqaano 1 ilaa 3 inji ayaynu hoos si qoto dheer u riixaynaa. ilmaha yar waxaan sameynaa 15 cadaadis laab riixitaan ayaan sameynaa halkii marba 100 ilaa 120 ayaynu minidkiina sameynaa 15 riixis iyo 2 neefsiin ayaan ilmaha yar iyaga ayaan sameynaa. marka cadaadiska riixitaankaas ayaynu wadaynaa waxa loo yaqaano oo u baahanay inaan ku celcelino
ilaa intuu ilmaha yar si fiican uu inoogu neefsanayo. Goormeen joojinaynaa? Markuu ilmaha yar neefsiga caado uu inoogu qaato, marka aynu qalab caafimaad aynu helno ama shaqaale caafimaadka inoo yimaadaan, iyo marka aynu ku daalnaba ayaynu sameynaynaa. haddii ilmo yaraa calaamadihii nolosha uu wax loo yaqaano if the victim shows signs of life, haddii ilmi calaamadihii nolosha uu inoo aynu ku aragno waan iska joojinaynaa. Recovery positionkii ayaynu u dhiganaa. Recovery positionka waa the same, waxa loo yaqaan dhinac bidixna u dhigno, waxa loo yaqaano gacantiisii midigna u barkino, garkana ee hore usoo riixno ayaynu sameynaynaa. Marka positionkii videoyo waxaan idin soo dirayaa markaa ku tusinayo insha Allah markaa.